كوريسي دراوي الشبكي وحي ما سوتري إسماعيل مرة وحا إنوغا تاريخي يوسف وحا المركز اسكودي يا غيبة الضنباء هنا وحكا إلى هذا وحا نكالو إن شاء الله اسكودي يا هنا نحوغا تاريسا كدرو درويشكا يا قراغبا أرنت صدحات عن رواينا كدرا وحوي وحيابا إشكال هذا وإن وحلا إسكوي ديانا وباهن سيدة دبا وحوي عيد معصومة هي مجرته مركا النبي ذا لقيمته مركا دad waxay ahaayeen dadaalay waxyaabo badan oo ay ku saxan yihiin jirtay waxyaabo laga dheehan karayo taariikhdooda iyo gabayadana ay jiraan sababaha keenay marka in laga jawaabo u baahan si guud haddaan horta u eegno buuggan waxaa ku qoran 250 maanso ama gabay ha ahaato ama geeraar ha ahaato ama jiifta ha ahaato waa 250 kaas 14 kamidii waa intuu darwiishka ahaa inta kalena waxa weeye intii ka dambeysay waxa kale iyadana xusud u baahan gabayada laga hayo Ismaaciil Mire in badan oo kamida qoraagu wuxuu sheegay inaysan dhamaystirnayn qaar buu 2 sadar ka sheegay qaar buu 4 sadar ka sheegay Ismaaciil Mire aan lagu bartay ma ahayn 4 sadar iyo 2 sadare nin wuxuu amarku gabayga u dhaqaaqo gabayga ku araarta buu ahaa araar badan soo mara markuu araarta ka soo gudbo kadib dulucdiisa u soo gudbo ragga gabayada ku araarta ee marka hore u soo araarta gabayadoodu waa ka xeel dheer yihiin gabayada markiiba meesha ugu horeysa laga soo qabsado ee ujeedada la abaaro waliba Ismaaciil Mire wuxuu kaga duwanaa gabayo badan oo araarta gabayga kuma faani jirin isla markaana kuma goolaftani jirin gabay baan saa ugu gelaya iyo gabay wax saa ugu waxaynaya ma oran jirin marka laakiin waxyaabo taariikh ah iyo waxyaabo dhacay iyo waxyaabo u kurgalay uu ka hadli jiray gabayada 52 ah wax kamida aysan badnaane Ismaaciil Mire male laakiin waa kuwa ku yimi munaasabado مثلا gabay baa loo tiriyay gabay buu markaa kaga jawaabay marka gabaygii la tiriyay cid kala tirisay ba waxay noqotay markaa inuu qoraagu meesha keeno oo markaa ka jawaabo waxa kamida gabayadaas intaan ka xusi karo hadeer ilaa 3 gabay oo isku qayb ku jira okay okay waa mulaaxada halka la soo jeedo leeyahay buuga 100 dheeraad baa ku qoran waa suurtagal laakiin inta fahraska ku qoran baan anigu akhriyay xagga fahraskan ka eegay laakiin waxaan u malaynayaa lafteedu waan arkay kuwa aan fahraska ku qornayn oo xagga kale ku jira waan arkay waa run marka taa waa ka cudur daaranaya gabayadaas aadan carab baa kamida ragga buugan gabay uu leeyahay ku jiro waxa kamida cali aadan goraya kamida oo gabayga ku jira uu leeyahay maxamed dayl baa kamida oo gabay uu leeyahay ku jira nin kale oo aan filayo in afin loo oran jiray laftiisa ma waxa loo oran jiray gaani hebel gaani oo filayno gabay uu leeyahay baa ku jira marka gabayo munaasabad ku yimi baa jira inta haddaan ka gudubno buugga gabayada guud oo ka kooban yahay buuggan 2 arrimood oo muhiim ah uu leeyahay baa qiimo gaar ah u siyeeray qodobkooda waxa weeye darwiishka laga qoray ninka laga qoray Ismaaciil Mire oo ah nin culus taariikh weyn ku leh daraawiishtii iyo daraawiishka dib in marka taariikhdiisii waxa kale gabayada mid kasta raacsan sababtii uu tiriyay marka Ismaaciil Mire iyo gabayadiisii in la qoro buuggan lagu qoray culays bay u yeelaysaa buuggan iyo muhiimad gaar ah Ismaaciil Mire maxaa marka sabab gaar ah oo maxaa jirta ka dhigaya in uu muhiim ku noqdo buuggiisu Ismaaciil Mire
sifooyinka uu lahaa intii la sheegay waxa weeliya wuxuu ahaa buuni gabay buuni maxaa laga wadaa marka laga hadlayo culumta diinta dadka bartay culimada Soomaalidu waagii hore marxaladay u kala lahaayeen waxa ugu horeeyay aw hebel baa la oran jiray waxa ku xigay nin la yiraahdo fiqih oo fiqih hebel la yiraahdo waxa ku xigay nin la yiraahdo sheekh waxa ugu sareeyay nin la yiraahdo buuni sheekh buuni hadii la yiraahdo sheekh loo sii raaciyo waa meesha hadda ay PhD gu inoo taagan tahay oo kale darajadaana ninkii deegaankeena ay xagga gabayga isku ayniga ahaayeen ee marka la yiraahdo yaa lambar 1 laga dhigaa ragga gabayada ah baa darajada siiyay oo ninkii la oran jiray Cali Aadan Gorayo waa tuulaha ba'da gabay Ismaaciil Mirabuuni ku ahaay beed uu akhriyay wali ma oran yaa bedelaka marka hal beed uu wali akhriyay oo aan sidii kaas leelay mala kelmadaas kaga wacan lahayd maba jirto leeyahay sidoo kale isaguna darajadaas uu siiyay oo Calina isna waa la siiyay darajada Ismaaciil waa siiyay iyagoo waliba iyagu isu gabayay oo ismaagay gabayga say isugu tirinayeen gabay isku maagayeen ba waliba aha marka wuxuu ahaa buuni gabay buu ahaa Ismaaciil Mira wuxuu ahaa filosof waxa la wada filosof inuu ahaa wuxuu ahaa nin urkuur gala adduunka iyo waxa ka dhacaya wax iska weydiiya kadibna ka faallooda waxyaabaha dhacayo eegi jiray oo ka fakari jiray waxbuu iska weydiin jiray kadibna waxbuu ka tilmaami jiray gabayo ka tirin jiray waxa kamid ah waxyaabaha falsafada ah ee la oran karo nuu aaminsanaa gabayga arago kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado macnaheedu waxaan baarsan yahay waxa weeye qofku haduu kibro marka ugu dambeeyo on kii la soo qabanayo inuu yahay taasi u jeeda waxa kamid ah gabayga uu leeyahay gasabley oo marka uu jeedo hadii qof aad aragto dhib ku dhacday ama wax ku dhaceen waxba uga horeeyay waxbu firsanayaa oo gasab baa jiray nafsi baa jira waxyaabaha marka uu soo qaadanayo waxyaabo wada dhacdooyin ah oo maangal ah oo critical thinking uu ku keenayo bay u badan yihiin wuxuu ahaa tala qabeen gabayo badan baa ku jira oo talooyin uu ku jeedinayo kuwa uu qabaayil ku kala dhaqaajinayo kuwa waxa weeye nin doonayay in wax la gaarsiiyo doonayay inuu aarsado oo uu leeyahay hawsha ha sameeynin oo marka uu ku qaboojinaya ku jira waxa ku jira gabaygiisa hal muceed iyo kelmado sheekh dambe leh oo hal qabsi noqda baa gabaygiisa ka buuxa intaas oo dhan marka laga eego iyo waxyaabihii hore la sheegay waxay u yeelaysaa buugan maanta inuu hor yaalla caawin hor yaalla qiimo gaar ah arinta labaad ee buugan qiimaha u yeelaysaa waxa weeye waa qoraaga ninka qoray waa Axmed Faarax Cali Idaaja Axmed Faarax waa qoraa ilaa 1973 ilaa 1991 markii dawladdu dhacday akademiyadii fanka dhaqanka iyo suugaanta uu ka tirsanaa wuxuu ahaa guddiga af Soomaaliga wax ka qoray buu kamid ahaa ilaa dhowr iyo 30 buugaag iyo isugu jira maqaallo oo wada muhiim ah buu qoray nin waxa weeye marka la bilkeeyo la tijaabiyay oo buugga uu qoraa waxa weeye buug la hubayahay waxyaabaha loo adeegsan karo buuggan waxa kamid ah qoraalkiisa inuu san laaxin badan lahayn iyo qaabka erayada isu qaadan karaana in ardayda iyo dhalinyarada wax qoraya ay ka shidaal qaadan karaan kelmadaha la kala goynayo kuwa la isku qabanayo kuwa la israacinayo naxwo ahaan sida hadalka loo dhisayo waxyaabahaas oo dhan waxaan isleeyahay wuxuu noqon karaa dhalinyarada wax qoraysa tixraac ay adeegsan karaan buu noqonayaa gabayada qaybta dambe ku jira intaan halka u gudbin waxyaabaha la xusi karo intii daraawish ka dambeysay ee taariikhda yeeshay koo waxa ka ah markii daraawish jabtay iyo ka bixistii Ismaaciil Mira uu ka baxay waxa uu la hubayo la isku waafaqsan yahay ceelka la yiraahdo ceelkii badweyn
isagoo faraskiisa wata geeyadiisa wata inuu isi soo taagay meesha markuu isi soo taagayna col uusan ku ogeyn oo Ingiriiski ah inay qabteen inta waa la isku waafaqsan yahay markii laakiin waxaan la isku waafaqsanayn sidee buu sayidku uga haro markii taleex la duqeeyay oo ka baxay sidee buu uga haro xaggan u aaday laba riwaayadood markaa warinaya idaaja labadaana dadkii uu ka wariyay buu sheegaya midda koowaad wuxuu leeyahay waxaan ka wariyay ninkii la oran jiray maxamuud xoosh dheere oo nimaya saaxiib ahaayeen ahaa isku daraawiishna ahaayeen isagu wuxuu leeyahay markii marashina lagu duqeeyay baan waxaanu galay meel buuro dhexdooda oo la sahmiyay kadibna sayidku wuxuu soocay naman afartameeye ah oo labadooduba ay ku jiraan sidoo sheegay waxaana madax looga dhigay maxamuud dheere markay ilaa laba habeen ku jireen baa waxa la go'aansaday in marka meesha laga baxo oo taleex la aado taleex marka la aado rag halka ka raacay rag badan baa marka jiray oo halka ka faynuunayo hadii la jabo rag badan baa de faynuunaya ceebna ma aha qofkii kulli joogay dawladda Soomaaliya markay dhacday baa garan karaya xaaladu siday tahay qofku marka waxa weeye systemkii uu ka tirsanaa oo jabo oo burburo waxa marka ay noqonaysaa xageebad ku badbaadi kartaa iyo xageeba dadkii maatada ahaa ee ku joogay sidee u badbaadinaysaa un bay ka noqonaysaa marka dad badan baa saan noqday maxamuud dheere marka wuxuu leeyahay kuma ceebaysna aniga laftayduna waxaan kamid ahaa buu yiri dadkii aan raacina ka leexday waayo wuxuu leeyahay daraawish way jabtay haddii xitaa aan la soo weerarin xaaladii marka taagnayd oo jabi lahayd kuma ceebaysnayn marka arinta labaad oo Faadimo Dhooro xaaskiisii ay tilmaameen waxa weeye in markii la duqeeyay marashi uu xanuunsanayay Ismaaciil Mire oo marka uu san meeshan la aaday oo san u raacin markii dambe uu soo kacayna meeshii cidla u arkay kadibna uu soo baxay taleexna iyadoo laga baxay marka uu ku soo beegmay kadibna uu yiri xageeba cid kuugu dhow oo halka maray halkaas marka lagu qabto waa marka la xirayo marka berbere la geynayo marka la xukumayo waliba waxa xusid mudan intii aan daraawish jabin oo la qaban isaga xukun dila oo isagoo maqan lagu xukumay baa jiray oo markii la galay berbere ragu ku jiray oo dil lagu xukumay Ingiriiska ugu xukunaa laakiin markii dambe laguma fulin arintaasi marka haday jirtay hadaysan jirin ba arin u keenaysa dhaawac ma aha waxa la hubaa Ismaaciil Mire inuu ahaa darwiish inuu ahaa mujaahid inuu ahaa nin waxa weeye waxaan ay dhab ka yihiin intaba waa la hubaa marka xilligan burburkana waxyaabaha yar dhacaa wax in ah u keenin maayeen taas waa qodob waana waxyaabaha had iyo jeer laga dhigi karo inay yihiin waxyaabo wax lagu dhaleeceeyo waxyaabaha kale ee wax lagu dhaleeceyn karo waxa kamid ah aan halka ku noqdo marka uu daraawiishtu jabayso Ismaaciil Mire qiyaastii 58 jir buu ahaa 58 sano meelahaas buu qiyaastii markii uu marka ka baxay xabsigii ee uu miyigii tagay oo dadkii ku noqday oo in badan ay kala go'doonsanaayeen waxay noqotay waxna uu san wadan xoolana wadan tacab sidii u gali lahaa buu galay waxa ka horeeyay oo uu diiday inta lagu diilo daraawiishtii markay aadeen shabeelooyinka baa Ingiriiski wuxuu humay ciidamo uu yiraahdo lagu diilo marka dad badan oo la yiri kaalay xoolaha soo kaxaysta xoolo badan bay haystaaneen baa aaday meesha dad xitaa daraawiishtii kamid ahaa ba ka qayb galay duulaankaas Ismaaciil Mire waa diiday anuu geeli maayo dagaalkaas laakiin markii dambe oo geel badan la soo helay waxa geeli loo bixiyay hagoogana waxa loo yiri kii la soo dhacay deecaro iyo geelisi laga soo dhacay buu hagoogtay kii geela wax ka soo qaatay geel badan buu helay sodomeeyay banka ugu yar gaadhay kadibna wuxuu noqday isna inuu marka kibir iyo faan la hagoogto kii ka hadhayna wuxuu la hagoogtay alla hadaad maalintii raaci lahayd kulli dadkan loo turi maayee bal xoolaha ma wax ka soo qaadatay daraawishina jabtay waxna ka hadhi maayaan markii dambe marka Ismaaciil duulaan yar oo xaafadeed buu dib u qaadayo meelihii xoogaa ku soo yara galay lafi
قلبات بعيد حاجة قلبات كهاي قلبات بهاي حاجة سؤال مركا قبيو بكتري ورنتها قبيو كتري مركا دينا عاس بو يسووا اللي حضر وحيابها مركا اللي يسويدين كرو وحويه جيلن يدعيسا iyo waxyaabaha kan maxaa kalifayo miyaan lagu eedayn karin loo oran karin xoolaha dadka la dhacayo waxaan isleeyahay waxyaabo waxa jiray dhaqan Soomaalida oo ahaayo u baahaafan dadkana waxa galay xamaasad diimeed iyo inay waxa weeye gaal la diriraan oo jihaadaan iyo in gumaysi iska ciriyaan baa gashay laakiin waxyaabo badan oo waxa laga yaabaa dhaqankii iyo wixii ay jiidanayeen inay wali sii jireen suurtagal way daraawiishtuba geela dadka waa ka dhici jireen oo ka qaadi jireen yana waa laga dhici jiray waxyaabaha la isweydiiyay waxa kamid ah gabayada qabyaalada iyo waxyaabaha ku saabsan waliba qayb dhan oo gabayada ugu badan baa aanu malan inay ku qoran yihiin nin ay ilmadeer ahaayeen oo la dilay bay ku saabsanaayeen inta badan oo guubaabo iyo waxyaabo la mid ah ay ku jireen iyadana laba arrimoodba waa laga jawaabi karaa gabayadiisu waxay tilmaamayaan in badan ergoonayay oo uu lahaa halaysiiyo xaqiisi laakiin uu waayay wax xaqiisi siiya waxa kale oo maysa gaarayana ahayd inaan xitaa cid kale lagu khaldamin xitaa niman damcayna marar duulaan uu ka joojiyo yiri daaya hawsha gelin markii u dambeysayna ninkii tuunka loo qabay mooyaan cid kale aan lagu xadgudbin bay ahayd waxa la sheegaa intii ka dambeysay daraawish jabkii laba dagaal kaliya oo ka qayb qaatay dagaal wuxuu ahaa ka geela oo ku doontay ka labaad ma ana arkin meesha uu ku jiro iyo waxa waxa ma garanaya ka labaad ee kala ka bidoona insha Allah qabiilada marka gabayadooda dhaqankii marka Soomaalidu ay lahayd iyo qaabkii u fikir jirtay bay ahayd in hab qabiil la isu xifaaleeyo in la isugu gabiyo in wax la isugu sheego bay ahayd sayidka garanaysan oo gabayadiisu dhasaasay u badnaayeen dadka u jawaabaya qabiil bay ku jawaabi jireen waxyaabaha marka laga hadlayay baa ahayn hadda aynu xilligan joogno baan gabayadeenu aysan ka marnayn dadku tiriyaan qabiil ka marnayn oo dhaqankeenu uusan qabiil ka marnayn marka waxa weeye xilligaas la joogayna waxyaabahaas oo waxyaabo dhici karayay bay ahaayeen waxaan filayaa inaysan garanayn inaysan noqonayn waxyaabo ku keeni karaya nuqsaan ku keenaya inaysan ahayn waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaabaha cajiibka aan ku arkay waxyaabaha aan islaam mala waabay ku cusub yihiin ma arko xilligaana jireedo oo ku soo daray maasooyinkiis waxa kamid ah heesaha la qaraamiga shawaagana waa jireen marka maaso kaga hadlayo qaraamigi iyo wiilal jeega xiiran kuwa hadda jeegada xiirto kala ah شو حلقة أنا واجرا باسي وحكني وحوري بهاي. كوي فرتك يصابح. كوي فرتك يصابح. مركا لبضع الرماد بحتى وحكوش يا جاي سوانتي سكوش يا جاي. هذا بوم سنتين.